السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شافعي iyo anigoo ah royal وحاليا أنا مات برنامج كسب فنان كقدر كيو وكحنا ندرك توبيا. sida horta hore u maqasheen ama aad ka wareyseen fanaanka ama xidiga muqdisho qadarkeeyo maalmahan dambe oo dhan ku dhawaad bil ayuu sii xiran yahay qadarkeeyona waxa waaye kiiskiisa ilaa hadda xaqiiqo looma hayo ishag maxaa leedahay dadka qaar waxyaabo social media qofba waxbuu ka sheekeynaa waxbaa isla dhex marayaa horta kiiskiisa qadarkeeyo wax xaqiiqo ah sababta u xiran yahay uma heno sidaa awgeed waxaan dhihi karnaa cadaalad darro ayuu u xiran yahay qadarkeeyo muusan helin dowlad garab istaagta muusan helin shacab garab istaaga ma uusan helin fanaaniin garab istaagta ma uusan helin dadka bulshada sida ay ka kooban tahaba ninkaas looma kacin waana laga jiiftay annaga ka shaqsi ahaanteena aad baan uga xunnahay qadarkeeyo wixii ku dhacay shaafici maxaad kala socotaa maxaase aad ka ogtahay qadarkeeyo kiisaskiisa iyo waxa meesha wax maraya نيو أرت فنان كقدر كيو وفنان وين فنان لقاه مثلا مقالة مقدسة يجيج صوماليات وفنان تاجروين كل هاي صوماليا وحكوا على هيستي هاد كمر ما يحكي في نادي كمر ما مقدسة عادي مايا من القرى كمرنا كارا مايا بيل بيك مقدسين aad baan uga xumaa wallahi billahi فنانkaas inuu xirnaayo hadda waxay noo taas macdara sharaf weyn maxaa yeelay waagii oo la xiri jiray qalbi dhagax waa aad loogu wada gilgilooda looga xanaaqay ma horta sideedaba way markay fanaankan looga aamusay reer muqdisho waa jiiftiin wallahi anaa ku sheegayo dig malidin sababta sana ku sheegayo horta dadka koonfurta degan iyo dadka soomaalida kale ma taqaanaa way kala xadaarad badan yihiin dadka koonfurta kasoo jeedo haddii aan ka hadalno waa dad ma taqaanaa ishag maxaa lidaa aad u daciifsan amudaa sometimes ma kululaadaan ma kacaan qafkooda ishag maxaa lidaa laga gardanaya uma heliyaan marka waa laga xadaarsiiyaan dhihi karnaa dadka ها والله meelaha kala daalaysa hadan aad looga xanaaqilaa loo kicilahay fiican maxay uga gilgilalayeen ay uga aamusiin intaan mideeda kale waxaa aad iyo aad ninkaas barnaamijkiisa uga gaawiyey fanaaniinta iyo dadka magaca ku leh mujtamaca Soomaaliyeed qof kastaba hal mar buu ka soo hadlay ka bacdina wuu ka aamusay marka waxaan dhigi karnaa ninkaas waa laga gaabiyey annaga had codkeena waxaan leenahay dowladda federaalka iyo dadka Soomaaliyeed iyo kulli waxaan gaarsiinaynaa in ishag maxaa lidaa ninkaas dib u helo xorriyadiisii aad baan uga xunaa waa fanaan weyn waa wiil dhalinyaro ah waa wiil mustaqbal waa wiil la wada jecel yahay marka annaga laftigana wayna gubaysaa ishag maxaa lidaa kuma faraxsanin 100% sidoo kale diimaanta lagu xir lahaa magaalada muqdisho teed afro kale fanaanka tobi ma yeeleen tobiyanka si fiican way aan u yeelena marka amu amusana fanaankeenu weynaata kakiyo marka asdheeshid Soomaali uga baxda marka amal waay wallahi ila ku qabanaan aad baan uga xunaa teeda kale niyo dawladdan iyo maxaa dhahay wasaaraddan la yiraahdo warfaafinta maarey inta dhahaan wallahi way u aamusan wallahi horta wasaarad oo ishag maxaa lidaa shaqaysa teeda kale safaaradda Tobi way soo dhameyn kartaa soo day kartaa fanaanka horta niyo dawlad iyo arrimahaas ma arkina wax dawlad horta oo ishag maxaa dawladda ma jirtaa ma walihin baan dawlad shaqayso awood la malihin marka qof kasto Soomaaliyeed oo dhibaato gaarta ishag maxaa lidaa ilaahay aan u bari karnaa ishag maxaa dawlad awood la oo wax noo soo deeysa ama wax noo furdaamaysa malihin mana haysano marka shacabka Soomaaliyeed fanaaniinta iyo dadka shacabka ayaa waxa laga rabaa in ay qofkooda ugu shaqeeyaan qofkooda u hiliyaan annaga laftigeena hadda weekend hadii saan ku socoto waxaan tagaynaa ishag safaaradda Ethiopia waa tagaynaa ku banaan bixina diyaar ma tahay soo duubina video asamad ina tagno anagu ku banaan bixino ishag maxaa la safaaradda Ethiopia waa sameeynaa insha Allah hadii aad tahay reer Sweden ama nawaaxigeeda soo diyaari wasaaradda mideeda kale wadan kasta aad joogtid boorka wiilkaas hala qaato fanaanka ay sawiradiis ku dhagan yahay safaaradaha ishag maxaa la wadamada aad joogtiin la taga ha arkaan qof kale idin doodaya malahan marka idinka rabaa in aad kacdiin fadhiga kaca annagana aad baan uga xunnahay walaalkeen inuu xidhnaado insha Allah ilaahay ku soo fududeeyo insha Allah xabsi insha Allah sabab ibrahim xabsi in raga loo sameeyay labaan dibnin weyn waxa weyn ma raga loo sameeyay laakiin mid kale aan ku sheegay adoon wallahi baan ku sheegay dadku ma dhahayaan fanaaniinta ma dhahayaan loo kaco wallahi way ku wada faraxsan dad badan hadda ku aabay wallahi aan ku wada faraxsan in dad badan waxa jiro alla fanaanti uu isqiiraysiina waa been habiyo ku waa ogahay waa fahansanahay laakiin walaalkeen qadarkeeyo insha Allah ta'ala وصباح برادر وانا صباح ساوي سو كلو كوهم بلينا ما دام لوي لو دله تسمع لي بلي علينا شيخ محل dadkiina waxaan idin ka rabaa inaad ishag maxaa fadhiga kacdaan
qiirada ka baxdaan iyo isciyaashiiska iyo boojada oo aad walaalkiin u helisaan maanta ayuu helin social media waa power hadda kulligan soo wada qorno qadarkeeyo free oo meel walbo orodka kusoo duula Ethiopia ma siiyastaan insha Allah ta'ala waxaan rajeynaynaa marka laga dareemo qof inuu laga xirnaa ma loo maleeyo aad baa u mahadsantihiin shacab loo maleeyo insha Allah ta'ala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.